السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 كلمات waxaa ku saabsan yahay conversation. A conversation between two friends waa sheekaysi ama wada sheekaysi u dhaxeeya laba ruux ama laba saaxiibo ah. Laba saaxiib waa arday ayaga marka waxa dhaxmarayso nin barayso ka dhibanaya. Hello, warhaye, how is your situation? Waa sidii xaaladaada. Hello, warhaye, how is your situation? Waa sidii xaaladaadu. Biya wuxuu yiri my situation xaaladaydu is 50/50. Waa kontonkiiba konton. Sida you can see aad ka arki karayso my appearance muuqaalkayga. My situation xaaladayda is 50/50. Waa kontonkiiba konton. As you can see saad ka arki karayso my appearance muuqaalkayga. Alright. Wuxuu yiri what do you mind? Maxaad ka qabtaa? What do you mind? Maxaad ka qabtaa? If we have haddii aan yeelano ama aan qaadano an amicable confab wada sheekaysi oo saaxiibtinimo leh with you other illegal aan qaadano as to si aan anaga brush up aan kor ugu qaadano ama sare aan ugu dhigano our educational system qaabka waxbarashadeena of a English language luqadda Ingiriiska ah. Biya wuxuu yiri never mind waxba kama qabo. Never mind waxba kama qabo. And that is taasina a good idea waa ray fiican. So ahate do as you wish saa doonta samee. Do as you wish saa doonta samee. Alright. Who encouraged you? Yaa kugu dhiirigeliyey to learn inaad barato English inaad barato yaa kugu dhiirigeliyey. Who encouraged you? Yaa kugu encourage alla dhiirigelin. Who encouraged you? Yaa kugu dhiirigeliyey to learn inaad barato Englishiga. Indeed xaqiiqadii no one cidna encouraged me iguma dhiirigelin to learn inaan barto Englishka cidna iguma dhiirigelin. But like I decided to learn it. I aniga decided go'aansaday to learn inaan barto it asaga Englishka aan u barto weliba for my own nafsadeed inay barato anaga go'aansaday. So get a bond ma fahanti. Get a bond ma fahanti. Actually sida xaqiiqdu tahay I can say that waxaan ku dhihi karaa you reached waxaad gaartay a good decision go'aan wanaagsan ayaad gaartay. Actually sida xaqiiqadu ay tahay I can say that waxaan ku dhihi karaa you reached waxaad gaartay a good decision go'aan wanaagsan. Let me ii ogolaaw ask you inaan ku weydiiyo another question su'aal kale ii ogolaaw inaan ku weydiiyo. Let me ii ogolaaw ask you inaan ku weydiiyo another question su'aal kale. What is the reason? Waa maxay sababta that so you are learning English at English ku baranaysid maxay tahay sababta? What is the reason? Waa maxay sababta that you are learning English ku baranayso? Please fadlan wata weli please fadlan bil ihsan tell me definitely tell me igu sheeg weliba definitely si qeexan oo waadixa oo kala dhigan igu sheeg. Please fadlan tell me ii sheeg definitely si qeexan igu sheeg. Biya wuxuu yiri if I respond haddii aan ka jawaabo if haddii I respond aan ka jawaabo that question su'aasha haddaan kaga jawaabo I can say that waxaan ku dhihi karaa I can say waxaan dhihi karaa Englishka is an international language. English waa luqad caalami ah. International means wax caalami ah adduunka laga hadlo Africa, Asia, Europe, America. Englishka is an international language waa luqad caalami ah which is spoken kaasoo loogu hadlo all over dhammaan the world adduunka dhammaantiisa waa laga hadlaa. If you are going to abroad haddii aad aadayso dibadda English ayaa laga rabaa inaad taqaan. If you are making haddii aad samaynayso business ganacsi English inaad taqaan laga rabaa. If you are going haddaad u socoto if haddii you are going aad u socoto to university jaamacad haddaad u socotana English ayaa lagaga baahan yahay. Even if hataa haddii you are going aad u socoto for tourism dalxiiska ayaa la tourism means waxaa la dalxiis. If you are going haddaad u socoto for tourism dalxiis indeed xaqiiqadii you can't dispense kama maarin kartid with Englishka kama maarin kartid. Wherever meel walba you go at aadayso meel walba aad adduunka Africa, Asia, Europe, America, bariga fog bariga dhexe meel walba aad aadayso English kama maarin. You can get waxaad helaysaa meel walba aad aado. You can get waxaad heli kartaa people dad helaysaa speaking oo ku hadlaya Englishka
if you know haddaad taqaano Englishka you can easily si fudud ayaad contact la xiriiri kartaa the foreign people dadka ajnabiga ah waad la xiriiri kartaa. That is why taas waa sababta I am anigu stressing aan xoog u saarayo learning inaan barto English language luqadda Englishka waa interest waxa u siinay kaas waa stressing waxa leedahay wax marka la xoojinayo waa xoojin xoog shay marka saarta waxa u dhaha stressing. I am anigu stressing xoogan u saarayo learning inaan barto English language luqadda Englishka even hatta you can bridge what u adii kartaa dan iyaga dadkaas ajnabiga am Africa joogo am Europe joogo Latin America joogo bariga Afrika joogo ama bariga dhexe hadayna ka seenin Vietnam joogo China hando ama China you can bridge them what u adii kartaa u adinaysa ilaa luqadda taqaan Englishka uu sheegay well and nice وأنا ونكسن why English become international language tani waa su'aal kale wuxuu yiri ardayda mastarciya su'aala weydiina well and nice وأنا ونكسن why English muxuu Englishka become oo noqday international language luqad caalami Englishka muxuu u noqday well and nice وأنا ونكسن why English muxuu Englishka become oo noqday international language luqad caalami ah biya wuxuu yiri as the matter of fact sida xaqiiqada ay tahay as the matter of fact sida xaqiiqada ay tahay because of maxaa yeelay British colony gumeysigii Britishka ama gumeysigii Englishka colony means waxa la gumeysi British hawa boqortooyada Englishka because of maxaa yeelay British colony gumeysigii Englishka colonized ayaa wuxuu soo gumeystay many countries wadamo badan in uu ku yaalo dawladda adduunka America hataa soo gumeystay Ingiriiska dalka hadda Mareykanka oo dawladaha hore kamid dawladaha hore Mareykanka kamid ama wadamada G7 kala leedahay waa soo gumeystay wadamada dhan Africa ku yaala Europe ku yaala Asia Europe America waxa dhan Ingiriiska soo gumeystay and that is why taas waa sababta Englishka become oo noqday international language luqad caalami ah. Nice to meet you kula wanaagsan you also asal adin soo kale kula wanaagsan. Assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.